بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahad سبحانه وتعالى. waxaanu maanta oo bisha 12 tahay bishii July Ilaahay noo suurta geliyay inaanu wada saxano oo isku raacno qodobadii hor taagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo muranka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay xamdiga Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ana waxaanu ku caan baxnay ummad ay iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba waxa la shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa in u diyaar garoodaan doorasho xaq ah oo xalaal ah Ilaahay billahi ta'ala dad wanaagsan oo iimaan leh oo amaanada xijin kara aynu soo dooranaa noo keentaan si aan u sharaxno marka maanta waxa weeye waa cusub ay noo bariyay waa aragtan saddexda xusbi ee qaran oo macay isqabsaday waxaan noo tala aan ku gaadhnay inaan sida wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalnaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah marka qof kasta reer Soomaaliland waxaan leenahay xil baa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo diiwaangelinta loo diyaar garooba komishanka ayaa waxaan ugu ducaynay Ilaahay xilka ku asturo ilkaan loo dhiibay Ilaahay ku asturo oo kuwii guulka gaadha iyo magac ku helay Ilaahay ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyagoo muddo dheer hadda wada hadal ku jiray waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga hor qaado doorashadina insha Allah inoo qabsanto 2020 labadii doorasho isku sidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka commissionku uu soo saaro insha Allah marka shacbiga waxaan leenahay muddo badan ma sugayseen doorasho haday wakiil tahay iyo haday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada dhammaan wixii ka soo baxa ee caqabado cusubna aynu geesuga soo wada jeedno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بام هذله وحمانت دمانتين أما قرنك سومانا دمانتي فرحدين إن خلافك مدة درس وجي تمي حسيني قبصومي الدورشين كسومالان قولها وكيل الله يقولها دجانك أنا مانتا أو بيشو تهاي بيشو تدباد لبيه طبعا تهاي سنة كلا بكون لبعتنكا ومالنا حدا صاف شرمي ونبدلي شيس صدق حسب الجارين شيس كي هراء تدبيه لعتنكي بيشي لبعض للجاري وحنا له ما عندنا إن سوينا عشان هو شخصي مدة وده هذا الدير كذب إن سوقنا ندي صدق حسب قرن ناسكو أفكارتين إن دورشة الله ضريرو لون ديار جروبو كويش كعصبنا وصاد دياريو جدول كي دورشة ده وقت أوصل تجلسنا ورق مدة قابن سنة كان لبكون لبعتك وحن آدي أدرنتي أن لنا هم مدرس ومال لنا هو ديار جرودو دورشة حري حلالة يدوان قلنت أو مدة كوبان كهرين دونت إن شاء الله iyadoo dhamaanteen xilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsamay qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka dimuqraadiga ah inta dhowrata sanado Soomaaliya jirtay ana ka dhicin dalal badan oo la ictiraafsan yahay maantana waxa halka magaceenu
ku meel maraa ama adduunyadu inagu majeerataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca marka waxaan leenahay maanta golayaasha muddo dhaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaar garoobo innagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wada leenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantiisa ee gaarka ah markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkina hagaagaysa marka waxaan leenahay shacabka reer Somaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisa gaarka meelaha iska dhigo hana u diyaar garoobo inuu qarankan maanta doorasho xor oo xalaal ka dhacdo oo si nabad u dhacdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.